Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada muuqaal cusub. Caloosha sida loo yareeyo qaabka ugu fudud. Halkan kala soco walaalkaygiiyow ama walaashaydiiyow. Ma ku dhibtay adigoo ogeyn inaad isku aragto caloosha oo kaa soo dheeraato ama kaa fogaato? Hawalwalin hana murugoonin. Waxaan kuu hayaa 6 nooc ama 6 qaab aad iskaga yareyn karto caloosha ama si fudud waqti kooban iskaga yareyn karto. Haddaba ku soo dhawaaw muuqaalkeena. Qodobka koowaad, yarey cunista ama isticmaalka sokorta badan ee ku jirto cuntooyinka ama cabitaanada sida cabitaanka sokorta leh ama juuska iyo weliba cuntooyinka fudud ee sokorta ku badan. Dhammaan intaan waxay siyaadiyaan baruurta caloosha iyo baruurta kiliyaha. Xitaa sokorta caadiga waxay ku ridaan qofka cudurka macaanka ee loo yaqaano diabetic. Fadlan iska yarey sokorta. Qodobka labaad, proteins. Cun ama badso cuntooyinka borotiinka ku badan sida ukunta, digirta iyo kalluunka, waayo waxay yareeyaan baruurta caloosha soo weerarto. Haddii aad badsato borotiinka, waxay baahidaada daboolaysaa waqti badan, waana u dulqaadan kartaa baahida badan, waxayna sababtaa in qofkaas caatoobo si dhaqsi leh. Fadlan isticmaal borotiinka si ay kaaga jaranto baruurta caloosha. Waxaad joojinaysaa baruurta badan ee jirka soo gasho. Qodobka saddexaad, yarey carbohydrateska ee jirka soo galo sida baastada, burka caadiga ah iyo weliba bariiska caddaanka ah. Waxay intaas sababtaa in jirkaada soo wajahdo xaalado baruur ah ama caloosha ay ku dhacdo mid aad u weynaato. Jooji carbohydrateska, waayo waxay joojinaysaa baruurta caloosha. Haddii aad joojiso carbohydrateska, waxaa yaraanayo calooshii kaa weynaatay. Qodobka afaraad, cuntooyinka ka buuxda qudaarta sida qajaarka, liinbalbeelmada iyo miraha dalka sida galleyda, digirta, qamadiga, salbukada iyo digirta cagaaran, waayo waxay socodsiiyaan intaan cunto caloosha kana hortagayaan in ay ku fariisato calool fadhiga constipation. Sidaas ay tahay, waayo waxay ka hortagaan baruurta, waxayna soo celiyaan istaalka qofka si uu caato u noqdo, meeshaana ku macsalaamay baruurta caloosha soo wajahdo. Qodobka shanaad, oo ah midka ugu muhiimsan, haddii aad isticmaasho ama aad u badsato, waxaad ku dadaalaysaa inaad heer badan ka gaarto. Waxaana exercise almiitada ama orodka jimicsiga leh ama socod dheer, sababtoo orodka wuxuu furfuraa jirka bini'aadanka, wuxuu qayb weyn ka qaataa gubidda baruurta caloosha soo gasho, isla markaana waxay dayactirtaa dareeraha dhiigga iyo weliba arooraha jirka soo siiyo oksijiinka. Qodobka lixaad, tixraac ku sameey cuntada aad cunayso ama iska ilaali cuntada badan ee ku badan tahay carbohydrateska si uu jirkaadu isku dheelitirnaado, weliba kaagana yaraato culayska caloosha saaran ee baruurta. Sidoo kale iska ilaali cuntooyinka caafimaadka lahayn, waayo mar walbeeto waxaad fiirisaa cuntada aad cunayso muhiimadda ay ku leedahay, sababtoo haddii aad isticmaasho cunto caafimaad leh, qudaaraha oo kaleeto ama cuntooyinka fudud oo aadku nafaqada badan, waxaad mar walbeeto caafimaadkaadu uu yahay mid aad u sarreeyo. Wabillaahi towfiiq. Is aragti dambo xiise leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.